Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdullah Okay. Halkan waa kanaalka dunida. Maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay toddobada madaxweyne ee ugu aqoonta badan Afrika. Afrika waxay leedahay madaxweynayaashii ugu aqoonta badnaa abid. Laakiin inkasta oo ay gaareen guulahoodii aqooneed, qaaradda ayaa gadaal uga sii socota horumarka dhaqaalaha. Tacliintu waa aalad aasaasi u ah hogaaminta, laakiin xaaladda qaaradda Afrika, caddeynta ama musuqmaasuqa ayaa farqi aad u yar u leh. Afrika waa hoyga wadamada ugu saboolsan horumarka adduunka. Waa wax inta badan loo anaaneeyo hoggaanka liita iyo musuqmaasuqa baahsan. Haddii ay jiraan hal shay oo xaalad noocan ah oo ku saabsan hoggaanka Afrika uu noo maleeyay, ayaa ah in caddeynta waxbarashada oo keliya aynan saameynin hogaamiye wanaagsan. John Pombe waa siyaasi reer Tanzania ah, waana madaxweynaha shanaad ee Tanzania. Tan iyo 2015 markii ugu horeysay ee loo doorto xubin baarlamaaneed. 1995 wuxuu ka soo shaqeeyay golaha Tanzania isagoo ah ku-xigeenka wasiirka howlaha ee 1995 ilaa 2000. Lambarka labaad, Boqor Maxamed V. Maxamed V waa boqorka Morocco. Wuxuu xubin ka yahay boqortooyada Alwad, wuxuuna ku fadhiyay 23 Luulyo 1999 markuu uu dhintay aabihiisa King Hassan. Lambarka saddexaad, Peter Mutharika. Arthur Peter Mutharika waa siyaasi reer Malawi ah, aqoon-yahan iyo qareen ah oo isagu ahaa madaxweynaha Malawi ilaa iyo 31 Maajo 2014. Mutharika wuxuu si caalami ah uga soo shaqeeyay garsoorka caalamiga ah. Wuxuu khabiir ku yahay sharciga dhaqaalaha caalamiga ah, sharciga caalamiga ah iyo sharciga dastuurka ee isbarbardhiga. Wuxuu sidoo kale soo qabtay jagooyinka wasiirka cadaaladda iyo markii dambe wasiirka waxbarashada, sayniska iyo tiknoolajiyadda. Mutharika wuxuu sidoo kale soo noqday wasiir arrimaha dibadda laga soo bilaabo 2011 ilaa 2012. Lambarka afaraad, Alassane Dramane Ouattara waa siyaasi reer Ivory Coast ah oo madaxweyne ka ahaa Ivory Coast ilaa 2010. Dhaqaaliyahan xirfad-yaqaan, Ouattara wuxuu u shaqeeyay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF iyo bangiga dhexe ee galbeedka Afrika. Wuxuuna ahaa ra'iisul wasaaraha Ivory Coast laga soo bilaabo November 1990 ilaa December 1993. Lambarka shanaad, Master Keita. Ibrahim Boubacar Keita waa madaxweynaha talada haya ee dalka Mali ilaa 2013. Waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha Mali laga soo bilaabo 1994 ilaa 2000 iyo madaxweynaha golaha qaranka ee Mali laga soo bilaabo 2002 ilaa 2007. Master Keita waa aasaaska aabihii xisbi siyaasadeed garabka bidix oo la yiraahdo Rally for Mali oo loo yaqaan RPM 2001. Lambarka lixaad,
Foyer Izuzumi Ganazimboyi Iyedama. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto magaca. Waa siyaasiga Togo oo madaxweyne ka ahaa Togo ilaa 2005 ka hor inta uusan qaban madaxtinimada. Waxaa loo magacaabay aabihiisa Ganezi Bayidima inuu noqdo wasiirka qalabka macdanta, boostada iyo isgaarsiinta, isagoo soo shaqeeyay 2003 ilaa 2005. Lambarka 7 George Mane Obangiwe waa siyaasi Liberian ah, horeyna u ahaan jiray xirfadyahanka kubadda cagta ee hadda haya madaxweynaha 25aad ee Liberia ilaa iyo 2018. Ka hor doorashadiisii madaxtinimada wuxuu soo noqday senator ka soo jeeda gobolka Montserrat. Intuu ku jiray xirfadiisii kubadda cagta wuxuu u ciyaaray sidii weeraryahan. Sutton wrestling away from Gilchrist. Wow! Waa qofkii ugu horeeyay ee kubadda cagta ee madax ka noqda waddanka. Waxaa si weyn looga tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsanaa abid ee Afrika. 1995 waxaa loo magacaabay FIFA World Player of the Year, kan ugu fiican ciyaaryahanka sanadka ee FIFA. Wuxuuna ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or-ka, isagoo noqday qofkii ugu horeeyay oo ilaa iyo maanta uu noqday ciyaaryahan Afrikaan ah oo ku guuleysta abaalmarinadaas. Magacaygu Cabdulla. Halkan waa kanaalka dunida.